السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبيال waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan ka hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. Muuqaalkan waxaa si toos ugu daawanaysaa YouTube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. Qodobada aan ku soo qaadi doono maanta barnaamijkeena waxaa kamid ah Lionel Messi oo markii uu horeysay tababar ka qaatay tababare Ronald Koeman. qodobada kale aan ku soo qaadi doono waxaa kamid ah Barcelona oo dal muhiim ka gudbisay daafac u ciyaara kooxda kubadda cagta Arsenal waakay daafacaas barnaamijka aan ku soo qaadi doonaa. kooxda Barcelona oo xaqiijisay in Samuel Umtiti oo ka soo kabsaday xanuunka coronavirus halkii ayuu marayaa sheekada ku aadan Depay inuu ku soo biiri doono kooxda kubadda cagta Barcelona. qodobadaas aan ku soo qaadanay ayaan ku soo qaadi doonaa saaxiibayaal. soo dhawaada muuqaalkan share gareeya mahadsanidin. Lionel Messi ayaa markii uu horeysay tababarka wuxuu kula soo biiray xidigaha isku kooxda yihiin maalintii shalay ahayd isagoo markii uu horeysay tababar ka qaatay tababar Ronald Koeman. kabtanka Barcelona ayaa axadii maray tijaabada xanuunka coronavirus ka hor intuusan isliintii ku soo laaban tababarka laakiin qaadanayay tababar kaliya ah. Lionel Messi ayaa shalay oo Arbaca tababar buuxda kula qaatay xidigaha kooxda kubadda cagta Barcelona asigoo ka hoos qaatay tababaraha kooxda cusub ee Ronald Koeman. Messi ayaa markii uu horeysay tababar ka qaatay Ronald Koeman tan iyo markii uu ku soo laabtay tababarka marka la eego in uu ka dambeeyay xidigaha kale sabab la xiriira inuu doonayo inuu iskaga tago kooxda kubadda cagta Barcelona. xidiga Lionel Messi ayaa haatan isku diyaarinaya inuu kooxdiisa la bilaabo xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka La Liga. kabtanka Barcelona ayaa laga yaabaa inuu ciyaaro sanadkiisii ugu dambeeyay ee Barcelona ayaa doonayo inuu kooxda kula guuleysto koob badan. kooxda Barcelona ayaa doonayso in Hector Bellerin lagu qiimeeyo adduun 20 milyan ay ku bedelaan Nacer Semedo. Barcelona ayaa rabto in kooxda Arsenal ay ka soo qaadato daafac midig xulka Isbaan iyo kooxda kubadda cagta Arsenal Hector Bellerin kaasoo rabaan in 20 milyan balas Nacer Semedo ay siiyaan kooxda kubadda cagta Arsenal. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in ciyaaryahankeeda Samuel Umtiti oo ka soo kabsaday xanuunka coronavirus kadib markii xanuunkan laga helay 14 maalin oo karantiin galay. kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xaqiijisay in Samuel Umtiti oo ka soo kabsaday xanuunka safmarka ee coronavirus. ugu dambeyntii Barcelona ayaa heshiis shakhsi ah la gaadhay xidig reer Holland iyo kooxda kubadda cagta Lyon Memphis Depay sida uu xaqiijiyay wariyaha caanka Fabrizio Romano ayaa sheegay in Barcelona heshiis shakhsi ah la gaartay xidig reer Holland Memphis Depay. guddiga gunaanadkii ayaan soo gaarnay saaxiibayaal. qodobada aan ku soo qaadanay aragtidaada waad ka soo dhiibi kartaa sheer garay la wadaag taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona. waad ku maasantaa daawashada muuqaalkan. inta muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.